xafladan oo iyadoo ahay mid si heersare loo soo abaablay ayaa waxaa shaada sharaf lagu maamuusayay dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalka guud ee gobolka Gabiley waxaana xafladda tan soo qaban qaabisay dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Gabiley kuwaas oo iyagu iskood isku abaablay waxaana ka soo qayb galay xafladda tan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley culimaadudiin dhalinyaro haween cuqaal iyo waliba bahda caafimaadka ujeedada xafladda tan ayaa daarnayd in shaada sharaf lagu doonsiyo dhakhaatiirta ugu muhiimsan ee ka howlgashay isbitaalka guud ee Gabiley iyadoo xafladda tan ay si ballaaran u soo agaasimeen dhalinyarada ku dhaqan magaalada Gabiley waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada soo abaabushay xafladda tan Axmed Yaasiin Maxamed Ardaale oo tilmaamay loo baahan yahay in la dhiirigeliyo shakhsiyaadka u adeegaya bulshada gobolka maamulka sharafka xildhibaanka odayaasha dhalinyarada ugu tarayay dumarka waxaan uga mahadcelinaynaa xafladan aan ku shaqeyno barnaamijka caafimaadka gobolka Gabiley qof walba wixii uu mutaysto baa lagu shaqaa waxay naga mutaysteen haddii aynu nahay barnaamijka gobolka Gabiley cid kasta oo gobolka sharaf ku leh inaynu sharafno aynu ku sharafno qof walba wixii uu gobolka ka geysto maanta gaar ahaan gobolka Gabiley dhakhtarkiisu ama bahdiisa caafimaadka meelo kala duwan iyo marxalado kala duwan bay soo martay maanta meel ilaahay loogu mahadnaqo ayay inoo wadasaa waxaa kaloo horta mahadda u horreysa aynu siinaynaa ilaahay marka labaad waxaynu u mahadnaqanaa dhammaan shacabka iyo madaxda gobolka ee ka qayb qaatay in gobolka laga hirgeliyo dhakhtar weyn oo la isu xiro gobolka shanta degmo ee uu ka kooban yahay in si fiican uu looga hawlgalo rag iyo dumarba oo dhakhtarkaa weyni uu ku xiro shanta degmo ee gobolka kooban sidoo kale Sheekh Xasan Jaamac iyo Sheekh Maxamed Muumin iyagu kamid ah culimaadudiinka gobolka ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhalinyarada iskood isku abaabulay ee dhiirigeliyay dhakhaatiirta gobolka Gabiley dhalinyarada ra'yiga fiican oo keentay ee maskaxda fiican la timid taariikhda ugu mahadnaqaya waxa kale oo mahadnaqaya dhalinyarada iyaguna ka soo qayb galay shirkan lagu maamuusayo dhakhaatiirta anigu si gaar ah ayay run ahaantii taabanaysaa maadaama aan ahay nin waxoogaa yaqaana xagga diintana waxoogaa ka yaqaana xagga cilmigaana waxoogaa ka yaqaana ilaahay baan mahadnay ilaahay baan mahadnaqayaa ina soo waafajiyey inaynu inagoo qabnaa inaynu ka qayb galno xaflad maamuuseed oo lagu maamuusayo dakaatira qaybta dhakhtarrada ah oo yacni maanta shaqadooda cid walba ay hayso waa u kaloo mahadnaqayaa ciddii soo abaabushay xildhibaan Axmed Cali Maxamed oo madasha ka hadlay ayaa isna dadweynaha reer Gabiley ugu baaqay in la dhiirigeliyo lagana wada shaqeeyo horumarinta gobolka Gabiley ama hadalka meelaha kursi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada isxilqaatay iskood isku xidhantay garatay in waxa weeye dadka dadaalaya dhalinyarta dadka guud ka shaqeynaya macaamka in la taageero laga istaago waxa weeye la caawiyo ama la dhiirigeliyo ugu dambeyntii Dr. Deeqa Xaaji Saciid Cumar oo iyadu kamid ahayd dhakhaatiirta lagu maamusay shahaado sharafta ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeedisay dhalinyarta iskood isku xilqaamay geesta kalena soo bandhigtay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray isbitaalka guud ee magaalada Gabiley aniga waa kamid ah dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalka Gabiley muddadii ugu dambeysay ilaa 2011 ilaa maanta aniga iyo Dr. Fadhiya iyo isbitaalku marxalado fara badan ku soo maray furitaankiisana waxaa ugu horreysay waxaa la furay 12 March 2011 baa la furay marxalado fara badan ku soo maray sidooyinkii ugu horreysay la sheegay waxay jirtay mararka qaarkood aanay shaqaalo fiican ba aanay joogin mararka qaarkood waxay jirtay shaybaar aad u buuraa mararka qaarkood waxay jirtay anaan xataa qalab haysanin mararka qaarkood waxay jirtay xataa electricity-ga adeegka ugu xumaa marxalado fara badan aynu soo maray
horumarayaan. intaa kadib waxa shahaado sharaftii la guddoonsiiyay dhakhaatiirtii loogu talagalay in shahaado sharafta lagu maamuuso si kastaba aatee xafladda tan ayaa salka ku haysay dhiirigelinta shakhsiyaadka ku caanka ka shaqaynta danta guud iyo weliba adeegista dadka danyarta ee aan awoodi karin lacagaha lagu bixinayo goobaha caafimaadka waxaana xusid mudan in dhalinyarada soo abaabushay xafladda tan ay jeebkooda ka bixiyeen kharashka ku baxaya xafladda oo aanay cidna garab ka helin taasina ay muujinayso in la helo shacab ka midaysan danta guud ee gobolka Gabiley waa Jacfar Awil Hereri shabakada wararka ee Gabiley News magaalada Gabiley.